maalintii Uhud waxaa dhacday qiso yaab leh dadkii saxaabadii la laayay ee shuhadada ahaa markii la baarayay oo la sagoontinayay oo inta dadkii la aruuriyay shuhadadii Madiina dadkii qaar soo aadeen yaa gabar ansaariyad abaatimid oo kacaysa nin baa ka hor yimid markaasuu wuxuu waxaan kaaga tacsiyeenayaa aabbaha markaasay tiri aabbahay u kaadiye nabi maxamed ka waran sallallahu alayhi wasallam markaasuu waa fiican yahay nin kala ka hor yimid markaasuu wuxuu yiri zawjkaagi ninkaagi baan kaaga tacsiyeenayaa say tiri ninkayga u kaadiye nabi maxamed seebu yahay sallallahu alayhi wasallam wuu fiican yahay mid kala ka hor yimid walaalka baan kaaga tacsiyeenayaa waxa la gabadha waxa maalinta la dilay aabaheed iyo zawjkeedii iyo walaalkeed iyo laba ay dhashay baa la dilay markaasay tiri rasuulka ilaahay seebu yahay saalay wuu fiican yahay waxay tiri tusa ma degayo illa nabiga aan arko nabiga loo keenay sallallahu alayhi wasallam markay aragtay bay tiri kullu musibatin ba'daka jalal musiibo kasta oo adiga aan ahayn way fuudahay rasuulka ilaahay Allahu akbar dadka musiibooyinku ku dhaceen oo dadkay jeclaayeen ay dhinteen hooyada ay dhimatay aabaha uu dhintay walaalka uu dhintay odayga zawjkaagi uu dhintay xaaskaagi ay dhimatay caruurtaadi ay dhinteen bal jacaylka qofkaas aad u qabto iyo naxdinta aad ka naxsan tahay waxaad barbar dhigtaa jacaylka aad nabiga u qabto sallallahu alayhi wasallam iyo nibashadii nabiga naxdinta aad ka naxaysa isbarbar dhig taasay ahaayeen ila hadii daraja ma gaaray inagu bal waxaa dhici jirtay nabarka nabiga lagu wada inuu ku dhaco inuu qof saxaabi isu dhigo Allahu akbar maanta nabiga waa la caaya waa la dacaayadeeyaa ma jira qof inaga naga mid ahoo jecel qalbigiisa oo dhahaya inta nabi maxamed la caayi lahaa aniga hal ay caayo inta nabi maxamed la dacaayadeyn lahaa aniga hal ay dacaayadeeyo inta diinta nabi maxamed la duri lahaa aniga hal ay duro dhahaya ma jira maalintii Uhud markay saxaabadii nabiga ka yaaceen oo ka faydmeen oo dagaalkii xumaaday oo nabiga ay ku soo hareen laba saxaabi kaliya Talha ibn Ubaydillah iyo Sa'd ibn Abi Waqqas ay ku soo hareen Talha wuxuu arkay nabigii oo dadkiina ka faydmeen Qurayshtiina intay ogaadeen nabigu meesha uu jooga ay isu habar wacdeen buu arkay Talha ibn Ubaydillah markaasuu wuxuu isiri sidee nabiga ku difaaci kartaa markaasuu asaga dhan buu nabigu ku hagoogtay dushu ka fuulay nabiga sallallahu alayhi wasallam asaga dhan nabigu dusha ka fuulay sallallahu alayhi wasallam markuu nabiga saas uu ugu hagoogtay leebki ku socday nabiga asagu ku dhacaa warankii ku socday asagu ku dhacaa seeftii ku socotay asaga ku dhacdaa ilaa saxaabadii kale ay yimaadeen saxaabadii kale markay yimaadeen oo nabiga lagu soo aruursamay buu dhulka ku dhacay oo nabigu uu yiri sallallahu alayhi wasallam awjaba Talha maanta wuu waajibsaday janno maanta Talha la tagay walaalkiin qaada saxaabadu waxay dhigi jireen ninkii raba inuu arko qof shahiid ah oo dhulka dul socda Talha ha arko heerkaasay gaareen waxa yaab leh baabkan marka laga sheekeynayo qof saxaabada la mid ah ma jiro tusaalayaal waxaan soo qaadanayaa jacaylka ay nabiga saxaabadu u qabeen oo ka turjumayay amarkiisa ay u qaadan jireen amarka nabiga markii la sheego nabigu u dhoosaan sameeya say u qaadan jireen waxa kamid ahaa maalmaha kamida ni Julaybiib la yiraahdo oo saxaabi ah oo shaqadiisana la yaso oo shaqo aan fiicneen ka shaqeeya xoogaana marka la fiiriyo foolxun oo la yiri qof dumaru ma haweysato oo dumar kastoo doona ay diideen baa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam dumar kastoo doona way diiday waa nin foolxun oo shaqo aan fiicneen haysta shaqooyinka dadka lagu yaso haysta oo iska rafaadsan nabigu u yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu rasuulka ilaahayow wuxuu nabiga ay ma gursiya ii guurinay rasuulka ilaahay gabdhii waa ay diideen nabigu wuxuu ana ku guurinaya orod intaad u tagtay reer ansaar guriga intaad tagtay oo gargaraacdid waxaad tiraahdaa nabiga isoo diray ee gabadhiina ii guuriya waa gabadhii gabdhaha ugu qurxooneed oo ugu qiimaha badneed oo ugu wanaagsaneed oo nin walba u hunguriyeynaya
markaasaa la yidhi albaabka Julaybi baa taagan nin baa taagan waa la furay hooyadeed baa ka furtay markaasay wuxuu yidhi nabigaa isoo diray sallallahu alayhi wasallam wuxuuna igu yidhi orod reerkaa u tag oo gabadhooda ha ku guuriyeen bal amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta wuuna dhex yaallaa axaadiistii nabiga amarkiisii diintiisii shareecadiisii waana dhex taalle bal muqaarane oo barbar dhig markaasay waxay tiri maamadii intay naxday bay waxay tiri allah hadduu abubakar soo diri lahaa ama cumar ama cuthmaan ama cali uu soo diri lahaa maxaa iga dhici lahaa laakiin ninkan mayaan gabadh u guurin karaa odaygii bay la tashatay odaygii oo isna yaaban gabadhii baa hadalkii maqashay waxay dhaheen balukaadi gabadha aan weydiinna oon dhahanay seed u aragtaa xaaladan markaasay gabadhii aadeen markay gabadhii la hadli rabeen bay gabadhii soo booday markaasay waxay tiri ma waxaad rabtaan in aad celisaan qof nabigu uu soo diray sallallahu alayhi wasallam amarka nabiga miyaan celinaynaa ii guuriya bay tiri markaasaa loo guuriyey markaasay iyo ku barwaaqowday fiiri ilaahay baa u barakaynaya waa ninkii sallallahu alayhi wasallam shahiid ka noqday oo qisadiisu ay dheerayd waxaad fiirisaan marka amarka qofkaas inta uu la eg yahay amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam inta uu la ekaa waxaan ku soo khatimayaa qisadan saxaabi la dhihi jiray Abdullah ibn Mas'ud oo aad wada taqaanaan yaa maalin wuxuu maqlay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo khudbad jumca u taagan oo dhahaya dadow fariista ijlisu ayuha nas banaanku marayay albaabka masaajidka soo gaarin buu qoraxda fariista nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo gal waxaan diiday nabiga oo dhahaya fariista inaan khilaafo warkiisa oo soo socdo inaga maanta nabigu meeqa amar buu nasiya fariiso gacanta wax ku cun qaabka u fariiso qaabkaas guriga u gal qaabkaas musuusha u gal qaabkaas quraanka u akhri qaabka u tuko qaabka wax u sadaqayso qaabkaas u seexo qaabka u guurso qaabka u mucaamalood qaabka wax u gado amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo tirada ka batay laakiin intee wax la eg baasaan u qiimeynaa su'aalaha isweydiin dhowr su'aalood weliga ma oyday jacayl aad nabiga u qabto sallallahu alayhi wasallam intaad xasuusatay ilma ma ka daadatay nabiga ma jeclid sallallahu alayhi wasallam weliga amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam markii aad maqasho intuu kula weynaaday oo aad ku faraxday ma qaadatay adoo ku faraxsan oo uu kula yahay wax adduunka iyo dhulka iyo samadaba ka weyn heerka ma gaadhay markaad maqashid qisaskii nabiga iyo saxaabada intee wax la eg bay kula gaadhaa ma jeceshahay oo ma ka fakartaa mar walba inaad maalinta aakhira nabiga arki doonto iyo in kale ثوبان أو موليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي قوي من صو قيران أو دارسون نبي وحكيري محاك الدوري دارس ثوبان أو كلر كاو سلب بدلي حي رسولك إلهي أو مرك أنا كأرق يا وحشودا قلبي جيبا يا حماضة أنا قد نوان مروجودا مركاسا ونك أنتو عتوي أو مروجودي مركان كأركبان دجا مركاسا وحان حسوس تيبويري قيامة مرك أي نعض أو جنة لقلو هدي أن جنة قلو horta hadaan jannada gal inaan ku arkin maba ku arkayba hadaan jannada gal tawaan ka baqay waxaan kala ka baqay hadaan jannada galo inaan ku arki waayo sababtoo ah adiga darajadii nabiyada iyo anbiyada ee sara lagu geynaya anigana waan ka hoos maraya inaan ku arki waayo oo isku level aan noqon weyno baan ka baqay markaas uu murugooday oo wajigii isbedelay oo uu caatoobay ila hada alhad nagu arnay qof wiil gabar jecel oo leeyahay wuu caatoobay gabar ninkay jecel loo diiday oo leeyahay way caatowday way isbedeshay laakiin qof nabiga jacaylkiisa isla bedelay oo muruga ka muuqato markaas uu nabiga u jawaabay waxa soo degtay ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وصدقت هداد النبي جعشه صلى الله عليه وسلم oo qalbigaaga marka nabiga xasuusto uu isbedelayo oo wajigaagu isbedelayo oo uu qofka kula qiimaha badan yahay oo hooyada iyo aabaha iyo canugaaga iyo xaaskaaga inay dhintaan oo maalkaagu baabao aad nabiga uu kaala weyn yahay nabigu sallallahu alayhi wasallam oo hal amar ama xadiis oo nabigu bixiyay oo inta kaala weyn yahay waxa tahay qof mu'min ah waa tahay hadaada naftaada
iyo ehelkaaga iyo maalkaaga la isku daray aadan nabi maxamed ka jeclayn iimaankaaga waxba kama jiro nabiga Umar buu ka diiday adiga lagama yeelayo jazakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh